مريم النبتازي وقبر كنو تولد نكوما كوتالا دالك أوغندا قبردني ما أهمد عادية وانا قبرد شيء أفر يا أفرتن عرورة يدو سقال يسدن جرا هاتن عرورتا وحاونو سديد يصدن عرورة وحيني دمانتو تكون شيء سي عادية مركا لغا ريبوكا أغير أو أفر بلاد إسلام مركانا يكون شيء دختركا عرورتا فرها بدن لي أيا وحيودا شيء لحمتانود أفر مسدحا يسدح من أفره يسدو كلي الميه يقدم بيه oo kaliya ay dhashay 10 kamid ah caruurta Maryama waa gabdho halka inta kale ay yihiin wiilal waxaana ugu weyn caruurta 23 jir halka ilmaha ugu yarna uu yahay 4 jir hooyada dhashay caruurtani ayaa waxa ay ku guursatay 12 jir muuqaalka guud ee qoyskan ayaa ah kuwa iskooda u qabsada balse mararka qaar ayaa la moodaa xira ciidan gaar ahaan marka loo qaybinayo cuntada مريم النبتازي مركن waxay ka sheekeynaysaa barbilowgii nolosheeda sanadku markuu haa 1993 ayaan guursaday nin 40 jir ah markaa waan yaraa mana garaneyn in la soo doonay iyo in kale aabahay ayaa la iga soo doonay waxaana u yimi rag fara badan ninkay soo doonay waxa uu ahaa nin caruur badan dhalay oo xaasas hore ay u dhaleen markuu sanadku haa 1994 waxaan dhalay mataano anigoo 13 jir ah 2 sano kadib ayaa waxaan dhalay 3 caruura halka sanad iyo 7 bilood kadibna aan dhalay 4 caruura aniga arintani ma ahayn mid la yaab igu ah waayo aabahay ayaa dhalay 45 caruura oo kala duwan inta kadib waxaan la xiriiray goobaha caafimaadka waxaana igula taliyeen inaan iska yareeyo dhalmada haatan farxad ayaan kula noolahay caruurtayda mana dareemo wax dhibaato ah marka aan iyaga la qaadanayo waqtiga hapo nilienda Australia ili wanifunge kuzaa madaktari walichukua vipimo walisema nilikuwa na mayai mengi na inga Liban Isman Ali Television Caruur magaalada Hargeysa